السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا محمد عبدي channel كان قد دعونا سوا بدل فيلمس أند فلوجز فضلنا هديت أمر كور الصوب وقت channel كان سبسكرايب صار فيديو لايك صار أصحابتي هذا نقصي شير جرس أو هلنا صاحبه سيدين وكلا أوفي عن أيانتان أسبوعا محمد دوبن وأسكم مشغول سنة تنكلنا جامعة عليه فرة وسبتيدا أسكت ديارنا هاي وحنا كسر السوشيال ميديا أرمى بدن أو أرمى أو تيك توك أو لايف أيانتان العقل قادنا أيو لايف كالعقل بدن عدد كقاتان ضد بدن أو لو بهدلها وأركاي tan kale waxaa jirta gabar kale oo iyadana reer Malaysia oo YouTube kala kacsanaysa inay maxaa la qof caan ah been ka sheegto ama qabiil ahaan ay ku dhaliilto taasna arrin kale social media ka socotay waay maanta waxaa rabaa baartito inaan niduubo barnaamijkeeni top 10 tobanka qof dadkii markaan dhahay soo kala codeeya inaad TikTok soo qaatay inaan Instagram ku xijiyo dadkii waxay boteen Instagram-ka inaan maxaa la soo qaato haddana waxaan ka hadli rabnaa tobanka qof ee Soomaalida oo ugu badan Instagram-ka followers-ka tan kale waxaa jirta hal mid kale waxaa jira dad oo inta hadda sheegay ka badana laakiin qofka waxa ku qiimeynaa Soomaali ma yahay ama fanaan ha noqdo ama YouTuber ha noqdo ama social media ka wax kale ku soo galo muhiimaddu waxa weeye inuu yahay Soomaali oo waxa uu social media soo dhigay inuu Soomaali yahay hadda waxa jira laba qof aan barnaamijkan ku soo qaadan doonin waxaana qof koowaad Ramlo gabadha boxer-ka dheesha iyada Soomaali waa tahay laakiinse inta badan waxay haystaa sharci dal kale waxaan u dhashay dal kale saasan ku soo qaadan doonin Instagram-keena waxa ka badiyay 1 milyan ka badan qofka labaad aan soo qaadan doonin waxa kamid ah Ilhaan Umar Instagram-keeda iyadana 1 milyan ka badan waaye laakiin dal kale maxaa lahaa Mareykanka sharcigiisa haystaa dal kale oo shaqeysa ama af kale ku hadashay saas oo soo qaadan doonin haddana waxaan nii soo gudbin rabaa tobanka qof aan Instagram-ka oo ugu follow badan waxaa kaalinta koowaad galay Abubakar Maxamed Sheekh Abubakar Maxamed waxuu follow haystaa 1.1 milyan ama 1 milyan iyo 100,000 oo follow waxa uu soo post gareeyay 250 posti waxa uu follow gareeyay ama ku darsaday 2 qof waxa kaalinta labaad soo galay Maryan Axmedey waxa ay follow u haysataa 993k ama 993,000 waxay soo post gareysay 2263 posti waxa ayna follow gareysay 613 qof waxa kaalinta saddexaad soo galay Dayaxdal Nuurshe 900 waxa uu follow haystaa 940k ama 940,000 waxa uu soo post gareeyay 1,137 posti waxa uuna follow gareeyay 430 qof waxa uuna galay kaalinta saddexaad waxa kaalinta afraad soo galay Shaadi Sharaf waxa ay follow haysataa 829,000 ama 829k waxay soo post gareysay 1,504 posti waxa ayna follow gareysay 82 qof waxa kaalinta shanaad soo galay Adnaheena waxay follow haystaa 825k ama 825,000 waxay soo post gareysay 417 posti waxa ayna follow gareysay ama ku darsatay 400 oo qof tan kale Adnaheena waxay ka soo qayb gashay 10 YouTuber ugu subscribe ka badan haddana waxay ka qayb gashay 10 qof Instagram-ka ugu follow badan waxaasna wuxuu gaartay dadaalkeeda waxa kaalinta lixaad soo galay Samara Queen waxay follow haysataa 820k ama 820,000 waxa ay soo post gareysay 942 posti waxa ayna follow gareysay 4,094 follow ama qof waxayna gashay kaalinta lixaad waxa kaalinta toddobaad soo galay Farxiya The Boss Lady xaaska Dayaxdal Nuurshe waxay follow haysataa 780k ama 780,000 waxay soo post gareysay 403 posti waxa ayna follow gareysay 135 qof waxayna gashay kaalinta toddobaad waxa kaalinta sideedaad soo galay Suldaan Seyraar Guhaad Suldaanka Geeska waxa uu follow haystaa 749k ama 749,000 waxa uu soo post gareeyay 259 posti waxa uuna follow gareeyay
75 qof. waxaa kaalinta 9aad soo galay walax waxay follow haystaa 735k ama 735,000 oo follow. waxay soo post gareysay 6 post miya okay 6 post. waxa ayna follow gareysay 403 follow ama qof, waxayna gashay kaalinta 9aad. waxaa kaalinta ugu dambeysa soo galay Najma Nashaad, fanaanada sanadka. awal horena waa ogeedeen waxaa kaalinta 10aad oo the best youtubers in the world. waxaa soo galay 10 qof oo youtube ugu subscribe ka badan. kaalinta 10aad waxaa soo galay Lii Caato oo ahaa youtuberka ugu fiican Soomaalida oo dhanka meelka marka laga hadlayo ama ragga. haddana waxaa kaalinta 10aad Instagram-ka soo galay Najma Nashaad oo ah fanaanada sanadka. waxaa kaalinta 10aad soo galay Najma Nashaad, waxay follow haystaa 706k ama 706,000 oo follow. waxayna soo post gareysay 71 post. waxa ayna follow gareysay 26 qof. haddana waa kana 10kii qof oo Instagram-ka ugu follow badnaa waan doona 10 qof oo TikTok-ga ugu follow badan. asxaabi isla socod wanaagsan. waxaan kaloo bilaabi rabnaa markuu barnaamijkan tubtan noo dhamaado barnaamij kale oo wareysi ah oo aan YouTube-leda wareysan doono. isla socod wanaagsan. intaan niga tagin waxaan leeyahay hal kelmad: samee waxaa sameyn lahayd berri maanta, samee waxaa sameyn lahayd maanta isla markaas ama isla waqtigaas. okay, bye bye, I love you guys.